assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. daawadayaal ku soo dhowaada Dalable Media. waxaan diradda saari doonnaa muxuu yahay dib u dhaca ku yimid doorashada Hirshabeelle, sababta ka dambaysa maxay tahay, guddiga madaxa bannaan war-saxaafadeedkan degdega ah ee ka soo baxaysa muxuu yahay. halkan ayaan ku wadaagi doonnaa saaxiibayaal. sidoo kale waxaad maqli doontaan Soomaaliya iyo Masar waxa ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal iyo amniga geeska Afrika. haddaba maxaa isku soo duway geeska Afrikase maxaa ka jira? halkan ayaan saaxiibayaal sidoo kale ku wadaagi doonnaa. waxa kale oo aan idinla wadaagi doonnaa xaaladda magaalada Laascaanood, duleedka waqooyi bari iyo xuduudda u dhaxaysa Somaliland iyo waqooyi bari, xaalad ka taagan halkaasi, ciidamo laga cabsi qabo in ay labada dhinac u kala goostaan. halkan ayaan sidoo kale ku wadaagi doonnaa. soo dhowaada. haddii aad inagu cusub tahay janalka, subscribe inoo saar, muuqaalka inoo like-gareey, asxaabtaada la wadaag, aragtidaadana inoogu soo gudbi qaybta faallada. mahadsanidiin. war-saxaafadeed ka soo baxay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa waxaa muddo kooban dib loogu dhigay doorashooyinka isku sidkan ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle. guddiga ayaa isaga oo gudanaya waajibaadkiisa shaqo waxa uu ku wargeliyey dhammaan daneeyayaasha doorashada iyo shacabka Soomaaliyeed in doorashada isku sidkan ee golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle lagu sameeyey dib u dhac kooban si loo dhammaystiro howlaha muhiimka u ah doorashooyinkaas oo markii hore loo qorsheeyey inay qabsoomaan 20 bishan Agoosto ee sanadka 2026. warqadda ka soo baxday guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suhdimaha ayaa lagu shaaciyey sababaha dib loogu dhigay doorashada Hirshabeelle, iyada oo lagu soo koobay 3 qodob oo xasaasi ah, kuwaas oo kala ah: 1. diiwaangelinta codbixiyaasha oo weli ka socota 4 degmo oo ka tirsan gobolka Hiiraan. 2. in ururada siyaasadda loo baahan yahay in la siiyo fursad ay taageerayaashooda ku abaabulaan si ay si wax ku ool ah uga qayb galaan howlaha doorashooyinka. 3. in ururada siyaasadda fursad loo siiyo soo gudbinta liisaska musharaxiinta doorashada. sidoo kale war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in guddiga doorashooyinka uu 2 toddobaad gudahooda ku shaacin doono jadwalka cusub, kaas oo lagu caddayn doono xilliga rasmiga ah ee ay qabsoomayso doorashada maamulka Hirshabeelle. sidaa darteed, guddigu waxa uu ku wargelinayaa dhammaan daneeyayaasha doorashada isku sidkan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle in muddo 2 toddobaad gudahood ah uu ku shaacin doono jadwalka doorashada iyo xilliga ay qabsoomayso, ayaa mar kale lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. doorashada Hirshabeelle oo si weyn isha loogu hayo ayaa waxaa weli ka taagan dood culus, iyada oo ay mar kale soo laba kaclaysay tabashada reer Hiiraan oo doonaya kursiga ugu sarreeya maamulka Hirshabeelle, halka madaxweyne Cali Cabdulaahi Xuseen Cali Guudlaawe iyo maamulkiisa oo ku xidhan Villa Soomaaliya ay mar kale u ololeynayaan soo laabasho si ay u sii hoggaamiyaan dowlad goboleedka Hirshabeelle. haddaba war-saxaafadeedka ka soo baxay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suhdimaha ayaa u qornaa sida tan. war-saxaafadeed: guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suhdimaha isaga oo gudanaya waajibaadkiisa shaqo si waafaqsan qodobka 7 ee sharciga doorashooyinka, qodobka 10 ee sharciga dhisidda guddiga ee awoodda u siinaya hirgelinta iyo maamulka doorashooyinka, iyo qodobka 18 oo awood u siinaya cayimaadda taariikhda la qabanayo doorashada. waxa uu ku wargelinayaa dhammaan daneeyayaasha doorashada iyo shacabka Soomaaliyeed in doorashooyinka isku sidkan ee golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle oo horay u qorshaysnaa inay qabsoomaan 20 bishan Agoosto lagu sameeyey dib u dhac kooban
si loo dhammaystiro howlahan hoos ku xusan. 1. Diiwaangelinta codbixiyaasha oo weli ka socota 4 degmo oo ka tirsan gobolka Hiiraan. 2. In ururada siyaasadda oo u baahan in la siiyo fursad ay taageerayaashooda ku abaabulaan si ay si wax ku ool ah uga qayb galaan howlaha doorashooyinka. 3. In ururada siyaasadda fursad loo siiyo soo gudbinta liiska musharaxiinta doorashada. Sidaa darteed, guddigu waxa uu ku wargelinayaa dhammaan daneeyayaasha doorashada isku sidkan ee dowlad goboleedka Hirshabelle in muddo 2 toddobaad gudahood ah uu ku shaacin doono jadwalka doorashada iyo xilliga ay qabsoomayso. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga warsugayaa halka uu ku dambayn doono loolanka siyaasadeed ee u dhexeeya dhinacyada isku haya hoggaanka iyo mustaqbalka maamulka Hirshabelle. dhinaca kale, Soomaaliya iyo Masar ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal iyo amniga Geeska Afrika. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Mudane Cabdisalaan Cabdi Cali Dhaay ayaa xaqiijiyey in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay in xiriir iyo wada shaqayn dhow ay la yeelato xukuumadda Qaahira si loo xoojiyo iskaashiga labada waddan loona xaqiijiyo danaha wadaagga ah. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Cabdi Cali iyo dhigiisa dalka Masar Badri ayaa talaadadii khadka telefoonka wada hadal ku yeeshay iyagoo diiradda saaray xoojinta xiriirka labageesoodka ah iyo isbeddelada amni ee ka dhacaya gobolka Geeska Afrika. wuxuuna dhigiisa uga mahadceliyey taageerada joogtada ah ee dowladda Masar ay la garab taagan tahay Soomaaliya. isla markaana wuxuu xaqiijiyey in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay in ay xiriir iyo wada shaqayn dhow la yeelato xukuumadda Qaahira si loo xoojiyo iskaashiga labada waddan loona xaqiijiyo danaha wadaagga ah. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar Master Badri ayaa mar kale waxa uu ku celiyey taageerada adag ee xukuumadda Qaahira ay u hayso midnimada, madax-bannaanida iyo badqabka dhuleed ee Soomaaliya. wasiirka ayaa si cad u sheegay in dalkiisu uu ka soo horjeedo tallaabooyin kasta oo halka dhinac ah oo wax u dhimi kara madax-bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya. wasiir Badri ayaa xusay in Masar ay ka go'an tahay xoojinta iskaashiga istaraatiijiyadeed ee ay la leedahay Soomaaliya, isla markaana ay sii wadi doonto taageerada dadaalada lagu tayeynayo hay-adaha dowladda, gaar ahaan dhisidda awoodda la dagaalanka kooxaha nabaddiidka ah. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa ku baaqay in maalgelin waarta loo helo howlgalka cusub ee taageerada iyo xasilinta Midowga Afrika ee Soomaaliya, isagoo xusay ka qaybgalka dowladda Masar ee howlgalkaas. wuxuuna tilmaamay in howlgalka Midowga Afrika iyo kan qaramada midoobe ee taageera Soomaaliya ay tahay in la sii wado, isla markaana dhaqaale ku filan la siiyo si ay gacan uga geystaan ilaalinta amniga, xasiloonida iyo midnimada Soomaaliya. guud ahaan daawadayaal, warbixinteennii intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa. waxaan idinka codsanaynaa haddii aad inagu cusub tahay in aad janalka subscribe inoo saarto, muuqaalka inoo laagarayso, asxaabtaada la wadaagto, aragtidaadana aad inoogu soo gudbisa qaybta faallada. mahadsanidin.